wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay inuu socdo abaabul ka dhan ah qorshe la aaminsan yahay inuu wado madaxweyne Farmaajo kaas oo dadka qaarkiis sheegayaan in la rabo in lagu soo beego 12 bishan Abriil oo ku aadan maalinta ciidanka xoogga dalka. muddo bil ah kooxda madaxweyne Farmaajo waxay wadaa abaabul ciidan oo dhanka militariga ah. saraakiil ay ku jiraan Biixi iyo Odawa ayaa qayb weyn ka ah qorshahan. muddo 3 sano ah lama xusin maalinta ciidanka xoogga dalka. in hadda oo ay doorashadu gabagaba tahay lagu soo beego ayaana tuhun badan dhalisay. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa si iska soo horjeeda u bixinaya xogo ku saabsan waxa socda. munaasabadda 12 Abriil waa jirtaa sanadkan, balse waxaa la sheegayaa inay ku hoos jiraan qorshooyin la rabo in dalka qalalaaso cusub lagu geliyo. xubnaha u xil saaran munaasabaddan ayaan la xiriirnay. mid ka mid ah jarnaalada u xil saaran diyaarinta munaasabadda 12 Abriil wuxuu xaqiijiyey inaanay jirin wax ka dheeri ah dhoolatuska 12 Abriil. waad ogtahay dhowr sano lama qaban munaasabadda 12 Abriil. waxaan go'aansannay inaan sanadkan si weyn u dabaaldegno oo aan soo bandhigno awooddeenna. waxaan xiri doonnaa laga soo bilaabo xerada Turkisom ilaa Habar Khadiijo, dhinaca markaa u dhaqaaqdidna ilaa wasaaradda gaashaandhigga. inta badan socodka magaalada waan joojin doonnaa inta uu dabaaldegu socdo, ayuu yidhi mid ka mid ah madaxda ciidanka ee loo xil saaray diyaarinta munaasabadda maalinta ciidanka xoogga dalka, kaasoo beeniyey inuu jiro qorshe kale. laakiin hogaamiyaasha mucaaradka iyo saraakiisha taabacsan ee ciidanka xoogga dalka ku jira waxay maalmahan wadeen akhbaar taas ka duwan oo ah in laba xaaladood midkood uu ka fakarayo madaxweyne Farmaajo. mid waa in saraakiisha militarigu soo jeediyaan in doorashadii fashilantay, dalkuna uu firaaq galay, sidaa darteedna ay militarigu ammaanka caasimadda la wareegayaan inta la isaga imaanayo oo laga heshiinayo arrimaha doorashada. midda labaad ee mucaaradku qabaanna waa in magaalada la rabo in la xiro 12 Abriil ilaa 14 Abriil si loo baajiyo dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka cusub oo la qorsheeyay inay dhacdo 14 bishan. inkastoo hadalkaas kala duwan ay bixinayaan saraakiisha militariga ee kala taabacsan Farmaajo iyo mucaaradka, haddana caasimadda waxaa ka jira abaabul ciidan oo ay wadaan xubno siyaasiyiin ah oo taabacsan ra'iisul wasaare Roble. xubnahan waxay sheegayaan inay macquul tahay inuu madaxweyne Farmaajo mar kale isku dayo inuu abuuro qallaaso cusub. kooxdan waxay leeyihiin duulaan uma soconno, laakiin waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno haddii uu mar kale Farmaajo aado dhanka awoodda ciidanka. waxyaabaha shakiga 12 Abriil xoojinaya waxaa ka mid ah kooxda madaxweyne Farmaajo oo joojisay ololihii doorashada. dadka caasimadda ku nool ayaa iyaguna dareemaya cabsi la xiriirta hadalhaynta 12 Abriil. lama hubo inuu Farmaajo diyaarinayo inuu qaado tallaabo kale oo halis amni gelin karta dalka, laakiin marka la akhriyo sida ay kooxdiisa u fakartay iyo ficiladoodii 5 sano ee lasoo dhaafay, ma jiraan waxaan macquul ahayn ayay leeyihiin falanqeeyaashu. dhanka kale, ra'iisul wasaare Roble ayaa la soo warinayaa inuu dhowr isbeddel ku sameeyey madaxda ilaaladiisa iyo howlwadannada ku dhow qaar. tan iyo markii ay habeen hore Niisa sii daysay fariin culus oo muujinaysa in lagu soo maqan yahay Farmaajo iyo Roble oo uu amnigoodu halis ku jiro, ra'iisul wasaaraha waxaa la sheegay inuu dalbaday ciidan dheeri ah iyo inuu qaaday tallaabooyin isbeddel ah oo uu ku xaqiijinayo nabadgelyadiisa. madaxdii sare ee dalka ayaa si weyn u kala shakisay, iyadoo khilaafkii siyaasiga u muuqdo inuu u wareegay dhanka ammaanka. muqdisho hadda ma qaadi karto khilaaf cusub iyo qorshooyin amni oo iska soo horjeeda. dalku wuxuu wajahayaa abaar xooggan, sicir barar iyo dhibaatooyin kale. adduunku wuxuu u muuqdaa inuu ka sii niyajabayo Soomaaliya. xalka waxaa loo arkaa in doorashadu degdeg ku dhammaato si loo helo hannaan dowladeed oo samata bixin kara dalka. maxay kula tahay adiga?